السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام يا برشاد الصوماليات مركزي كجوجتا دنيا دعالة السلام كبعدي عن آد وحن هاي فلالك أمن درو كالسعودو بلادك مقالة مقشو كاسو إلمان الهراء وإسحر فايستي أي سوق يستين لبعطو دمشق يرداو عليه عن جعلالة هنا دان هاي دليلة الصوماليات ونباقنا بدرينا anigoo ka wakiila dhalinyarada Soomaaliyeed oon dheer ku leenahay gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta ee gobolka in ay dhalinyaradaas gacan bir ku qabtaan oo falalka amni darro ay ka wadaan oo ay isu geysanayaan iyagoo waxyaabaha ay isku haystaan in xal laga gaaro oo arrintaas la fargeliyo oo la isugu sameyn arrintaas way soo laabatay waliba dhowr jeer ay dhacday hadda waa markii labaad baan maleynaya amase markii saddexaad intaan maqlay marka waxaan qasanaynaa oo jeclaan lahayn in gabdha walaala dadku isla dhashay waana ehel iyo qaraabo waana dad isku deegaana dhalinyaro is xulufaysatay inay hooyooyin hadda mataqaanaa nabad haysto ay wiilashooda dhib u geystaan oo lagu dul ooyo wiilal hadda nool oo gabdha aan weli ma garanaysaa iminka ay nool yihiin walaalahood ama xaasaskooda ay nool yihiin in iminka laga oysiiyo dhibaata ay soo kororto arrintaas waan ka digaynaa intii dhimatayna waan ka taxsiinaynaa waxaan kaloo ilaahay ugu baryaynaa intii dhaawacantay in allah subxaana wa tacaala uu siiyo caafimaad taama hadduu alla ka raali noqdo dib dhaafna uga dhigo waxaan rajaynayaa in ugaaska deegaanka dhalinyarada xulufaysatay wakiilka ka ah iyo duqowduba ay arrintaas si degdeg ku xaliyaan oon la aal yaraysanin inta uusan salka la gelin ficil xun oo hore loo soo dhaafay oon dib loogu noqonin waxyaabo hore loo soo dhaafay xilligan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.